السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبة جنار كان كحرا وسلامتين كسور دواد برنامج كان أخباراتك أفلامتا inta badan barnaamijkan waxaan kaga hadalnaa saaxiibada qiimaha badan qodobada waqti xaadirkan taagan sidoo kale maanta barnaamijkeena waxa kaga bagan doontaan filimkan weyn lagu magacaabo KGF Chapter 2 iskoorada waalida uu sameeyay sidoo kale filimkan within 3 days ganacsiga uu sameeyna barnaamijyadan ay kooban doontaan saaxiibada qiimaha badan KGF Chapter 2 uu tilaabsaday markaa maadaama dhankaasi Bollywoodka waqooyi Hindiya uu gilgilay sidoo kale iskoora caalami uu ka sameeyay shabakada Box Office India iskoorka ay soo daawacday isla fiirin doonaa intaan gudu gelin barnaamijkeena fadlan subscribe noo saar hana ilowin inaa muuqaalka laga noo saarto marka hore saaxiibada qiimaha badan waxaan ku bilaabi doonaa ganacsiga guud uu sameeyay filimkan weyn lagu magacaabo KGF Chapter 2 saddex maalmood ganacsi uu sameeyay ayaan isla fiirin doonaa saaxiibada qiimaha badan filimkan ganacsi adag ayuu sameeyay sidoo kale canshuurta ka horna lacag waali uu soo xareeyay 400 oo karoor ayuu ka talaabay guud ahaan dalka Hindiya daafaca caalamka lacag uu soo xareeyay saaxiibada qiimaha badan lacagta canshuurta ku jirta isla fiirin doonaa saddex maalmood lacagaas uu soo kala xareeyo gabadha kaliyin gobolka filimkan laga leeyahay Karnataka saaxiibada qiimaha badan canshuurta ka hor wuxuu soo xareeyay 72 karoor bar ayuu soo xareeyay dhankaasi Telugu wuxuu soo xareeyay 68 karoor ayuu soo xareeyay Tamil Nadu filimkan wuxuu soo xareeyay 24.8 karoor ayuu soo xareeyay waa canshuurta ka hor dhankaasi Kerala wuxuu soo xareeyay 21.40 karoor ayuu soo xareeyay dhankaasi waqooyi Hindi wuxuu soo xareeyay canshuurta ka hor 165 karoor ayuu soo xareeyay overseas-ka filimkan holac ayuu ka wuxuu soo xareeyay lacag gaarayso 58 karoor bar ayuu soo xareeyay wadarta guud filimkan saddex maalmood wuxuu soo xareeyay 410.20 karoor ayuu soo xareeyay haddaba qolaya cajaladaha qayb filimkan saami shaarka ka heleen maalin walba shaarka laga helay isla fiiran doonaa filimkan dheewan saaxiibada qiimaha badan shaarka laga helay waa 85.60 karoor ayaa laga helay dhaytoogis waxa laga 66.18 karoor ayaa laga helay dhaytriigis filimkan waxa laga lacag gaarayso 55.14 karoor ayaa laga helay wadarta guud filimkan qolaya cajaladaha qayb saddex maalmood waxay ka heleen lacag gaarayso 206.92 karoor ayuu ka helay taasoo ku tusinaysa saaxiibada qiimaha badan filimkan KGF Chapter 2 inuu doofaantiisu wada sidoo kale si holaca oo gadmay ogaada saaxiibada qiimaha badan filimkan kaliya saddex maalmood ayaa ku dhawaad 206 karoor laga helay haddaba xujadu hortaal waxay tahay filimkan waxa laga rabaa inuu soo lacag gaarayso 680 karoor markuu dib u keeno ayuu kalin hid ama hid dhameystir noqon doona sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan waxay u badan tahay filimkan weegiiskood markuu dhameysto inuu hid dhameystir noqon doona maadaama filimkan si dardar xooggan uu ku bilaabo sidoo kale maalin walba ganacsiga sameeyay 100 karoor kama dagaa 100 karoor almost wuxuu dhigantaa 14 milyan oo doolarka Mareykanka u dhigantaa maalin walba saaxiibada qiimaha badan KGF Chapter 2 ku dhawaad 100 karoor ay canshuurta ka hor soo xareeyay bal markaan waxaan soo qaadan doonaa filimkan iyo iskoorada ka dhigay dhankaasi afka waqooyi ama waqooyi Hindi marka laga daawanayo dhankaasi Bollywoodka shabakada Box Office India xogta ay soo daawacday isla fiirin doonaa saaxiibada qiimaha badan filimkan dhankaasi waqooyi Hindi loo magalay sidoo kale canshuurta saaxiibada qiimaha badan dhankaasi waqooyi Hindi filimkan loo magalay sidoo kale wuxuu ka dhigayaa wacdar laxad leh ayuu dhigayaa filimkan saddex maalmood canshuurta ka hor wuxuu canshuurta kadib lacagaha uu soo xariyay qolaya cajaladaha qaybay ay ka helaan isla fiirin doonaa saaxiibada qiimaha badan filimkan dhankaasi waqooyi Hindi ayaa laga daawanaa dhankaasi Mumbai iyo sidoo kale Delhi iyo dhankaasi saaxiibada qiimaha badan ayaa laga daawanaa inta badan aflaamta Bollywoodka ayaa dhankaas laga daawadaa filimkan dheewankiis wuxuu soo xariyay 52 karoor bar ayuu soo xariyay maalintiis labaad wuxuu keenay 45 karoor bar ayuu soo xariyay sidoo kale maalintiis saddexaad oo shalayto sabti ah wuxuu soo xariyay 42 karoor bar ayuu soo xariyay wadarta saddex maalmood saaxiibada qiimaha badan dhankaasi waqooyi Hindiya wuxuu soo xariyay lacag gaarayso 140 karoor bar ayuu soo xariyay haddaba saaxiibada qiimaha badan sidaas waxay ka dhigan tahay in filimkan lagu magacaabo KGF Chapter 2 uu noqday filimka lacagaha ugu badan soo xariyay week indiga koowaad waa luqadaha haddii noqoto Tamil Telugu Malayalam Hindi Bulu dhammaan number 1 ayuu ka galay wuxuu noqday filimka koowaad week indigiis koowaad lacagaha ugu badan soo xariyay saaxiibada qiimaha badan waxa isla fiirin doona top 10 ka 10 film lacagaha ugu badan week indigood kuwa soo xariyay haddaba saaxiibada qiimaha badan filimkan lagu magacaabo KGF Chapter 2 wuxuu darajadan kala wareegay filimka weyn lagu magacaabo Bahubali The Conclusion oo hogaamiye ka Barbas ayaa kaalintan in muddo iska haysto ahaa filimka koowaad lacagaha ugu badan soo xaray dhammaan luqadaha Hindi marka lagu daawado saaxiibada qiimaha badan KGF Chapter 2 kaalinta kooda uu gaaro week indigiis kooda wuxuu soo xaray lacag gaarayso 141 karoor bar ayuu soo xaray Bahubali 2 wuxuu galay kaalinta labaad 127 karoor ayuu soo xaray Sanju wuxuu galay kaalinta saddexaad wuxuu kan lacag gaarayso 189 karoor ayuu soo xaray filimka kan lagu magacaabo Tiger Zindaga hay asna wuxuu soo xaray lacag gaarayso 114 karoor ayuu soo xaray Sultan asna wuxuu galay kaalinta shanaad wuxuu keenay 105 karoor bar ayuu soo xaray filimka lixaad waa Dangal oo galay
asna wuxuu keenay 104 koror bar ayuu keenay sidoo kale filimka toddobaad wuxuu keenay Bajrangi Bajaan asna wuxuu keenay 101 koror bar ayuu soo xareeyay filimka sideedaad waa Race oo keenay 101 koror ayuu soo xareeyay filimka sagaalaad Tigers of Hindustan asna wuxuu keenay 98 koror bar ayuu keenay filimka tobnaad waa Prem Ratan Bayo asna wuxuu keenay 97 koror bar ayuu keenay saaxiibada qiimaha badan 10 film ugu bilaawshada wanaagsan sidoo aan dhahan ku celiyay 10 film weekend dogood kuwaad lacagaha ugu badan soo xaray taasoo ka dhigay KGF Chapter 2 inuu number 1 noqdo kaalinta kuwaad ayuu kala wareegay filimka weyn lagu magacaabo Bahubali 2 صاحبada qiimaha badan midan waxay idin tusinaysaa Bollywoodka in ciid la cunsiyo sidoo kale awoodooda dhankaasi koonfur Hindiya ayaa la wareegtay maadaama hadda filimka lagu magacaabo KGF Chapter 2 laga leeyahay dhankaasi fanka loo yaqaan Canada xaruntooda ay tahay Bangalore ayaa filimka laga leeyahay awoodiisa xindaafka koonfur Hindiya intii soo gudubtay ayuu Bollywoodka imaado sidoo kale Bollywoodkana bi ayaa la cabsi kaalinta kood waxa la wareegay KGF Chapter 2 صاحبada qiimaha badan iskoorkan waalida ayuu filimkan sameeyay hadda waxa ka leeyahay filimkan KGF Chapter 2 maalmo maalin ka dambeeyay صاحبada qiimaha badan iskoor waali ayuu sameeyay sida darada iskoorada kale oo sameeyay barnaamijyada dambe oo go'an doonta laakiin filimkan hadda sidoo ku socdo waa si holaca saaxiibada qiimaha badan markaana saaxiibada qiimaha badan waxaan soo qaadan doonaa filimka kala weyn lagu magacaabo Beast oo gaamiga Tel Aviv Vijay saaxiibada qiimaha badan superstar-kan Tel Aviv Vijay goolkiis lagu magari kara filimkan Tamil Nadu wuxuu ka sameeyay ganacsi adag ay ku sameeyay sidoo kale filimkan dhankaasi overseas-ka suuqyada caalamkana oo ku wanaagsan laakiin inta kale Hindi saaxiibada qiimaha badan waxa kala wareegay sidoo kale doofaantiisa ay gilgilaysa KGF Chapter 2 hadda saaxiibada qiimaha badan filimkan afar maalmood wuxuu soo xiray lacag gaarayso 164 koror dhibic 20 koror ayuu soo xiriyay sidoo kale markaan fiirno afarta maalmood shirka guud ay ka heleen qoliyaha jirada qeybay liban waxay ka heleen 44 koror bar ay ka heleen day2 waxay ka heleen 16 dhibic 20 koror ay ka heleen day3 qoliyaha jirada qeybay waxay ka heleen saami gaaray 12 dhibic 38 koror ay ka heleen day4 saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa laga lacag gaarayso 10 dhibic 58 koror ay ka heleen qoliyaha jirada qeybay ogaada saaxiibada qiimaha badan filimkan afar maalmood wuxuu ku soo xiriyay 164 koror dhibic 20 koror ayuu soo 164 koror soo xariyay halka KGF Chapter 2 saaxiibada qiimaha badan oo ka talaabay 400 koror ayuu ka talaabay taasoo ku tusinaysa in filimkan lagu magacaabo Beast uu xindaabkiisa kaliya ay tahay Tamil Nadu iyo suuqyada caalamka laakiin saaxiibada qiimaha badan superstar-kan Tel Aviv Vijay loo magali karo superstar banaanka yaala sidoo kale ninka yaash ah saaxiibada qiimaha badan filimkaas oo filim taxan oo aad iskaga jecel laakiin filimkan KGF Chapter 2 suuqyada caalamka sidoo kale guudaan dalka Hindiina uu gilgilay halka Beast kaliya Tamil Nadu iyo sidoo kale overseas-ka oo ku fiican labadan film ganacsiga ay sameeyaan barnaamijyada dambe ay ku ogaan doontaan markaan saaxiibada qiimaha badan soo qaadana Today History maanta oo kale faahfaahin aan kala daawaday maanta oo kale waxa la daawado filimka Falcon oo noqdo filimka lagu magacaabo kalanka filimkan waxa la daawado 7 Abriil 2019 hogaamiyaasha filimkan saaxiibada qiimaha badan waa Modori Dixit Sonoksha Sinha Front Down sidoo kale Ali Abad xitaa waxa ku jira filimkan saaxiibada qiimaha badan Sanjay Dutt ayaa ku jira saaxiibada filimkan lagu magacaabo kalanka waxa la saaray tiyaatar gaaray 4150 shilin ayaa laga daawaday waxa loo qaraj garay miisaanad gaaraysa 137 koror ayaa loo qaraj garay cimraantiisan filimkan wuxuu soo xaray 80 koror ayuu soo xaray sida daraadeed natiijaan wuxuu noqday flop ayuu noqday filim gool dareysay markaan fiirna filimkan waxa tikid u goosto shaleemada ka daawad gaaray 5,449 kun oo qof ayaa tikid u goosto shaleemada ka daawatay wuxuuna kamid yahay filimada qasaarada lixaad leh laga kulmay maadaama filimkan lacag gaarayso 137 koror loo qaraj garay saaxiibada waad ku maasantiin daawashada daawateen muuqaalkeen waxa halkaas ay nagu dhan barnaamijkeena akhbaaraadka film terrorka ugu dambeeyo inta badan maanta aan kaga hadlaynay filimka KGF Chapter 2 iyo sidoo kale iskoorada waalida uu sameeyay sida daraadeed saaxiibada qiimaha badan haday taa markuu ku soo boqonayso channelka subscribe noo saarhan ilawan inaa muuqaalka laga noo saarto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh